anigoo ah diini maxamed diini gudoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ee Soshansa inaan halkaan hambalyo uga diro shacabka Soomaaliyeed hambalyo ku aadan munaasabadda kowda Luulyo oo runtii ah maalin shacabka Soomaaliyeed ku weyn maalin leh taariikh runtii aad qaali u ah marka waxaan rabaa halkaan inaan farxaddaas iyo xafladdaas la qaybsado anoo ka hadlayo magaca bulshada rayidka inaan idhaahdo waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeedba horumar iyo nabad runtii munaasabadda kowda Luulyo waxay leedahay taariikhdaasoo hadda u baahnayn inaan anigu dadka u sharaxo oo dadka inta badan ay wada og yihiin laakiin waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo horumarka dalka runtii dal ma aha wax sahlan wuxuu u baahan yahay in la hanto oo la horumariyo oo la nabadeeyo waxay u baahan tahay shaqo fara badan cid kasta oo ama mas-uula ama shacaba ayaana looga baahan yahay cid gooniya oo looga baahan yahayna ma jirto waxaan runtii Soomaaliya ay u baahan tahay oo maanta waxay ugu baahi badan tahay Soomaaliya waa nabadda waxaan leeyahay colaadaha meelaha ay ka jiraanna waxaan ugu baaqaynaa in la nabdo bulshada rayidka guud ahaanna waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan oo sidayba hore uga shaqayn jireen oo runtii ay ahaayeen lafdhabarka nabadda Soomaaliyeed ay u ahaayeen maaragtay cudud midaysan oo firfircoon in laga shaqeeyo meel kasta oo maaragtay nabad darre ay ka jirto gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo runtii xiisadiisu ay hadda taagan tahay waxaan sidoo kale ugu baaqayaa mas-uuliyiinta maamulada iyo dowladda federaalkaba in aad iyo aad la isaga xil saaro sidii nabad loo nabadeyn lahay dalka Soomaaliyeed runtii Soomaaliya waxay u baahan tahay inay u dhaqaaqdo dhinaca nabadda iyo horumarka insha Allahu tacaala waxa la wixii aan anagu kan mas-uuliyiin bulshada rayidka inagoo kaashanayna dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo maaragtay arrinkan wax ka geysan karta waxaan ka shaqaynaynaa meel kasta oo nabad u baahan ama colaad ka jirto in dadkaas la damiyo mar kale waxaan shacabka Soomaaliyeed u hambalyaynayaa munaasabadda kowda Luulyo.